بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaan nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa dhul iib ah walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah dhul bannaan oo ah boos waa hal boos waxa iibka ah ku soo dhawaada waxa uu ku dhagan yahay dhulka bannaan gurigaas fillada ah ee duuga ah waa fillo xilligii maxamed siyaad barra ka timid booskan waa meesha hadda geedihuudka oo ka baxaayo jidkan weyn ee soddonka ahna waa uu saaran yahay walaalayaal waxaan guda gelayaa xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran insha allah ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo booskan iibka ah waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdishona waxa uu uga sii yaallaa degmada hiliwaana waxa uu uga sii yaallaa xaafadda loo yaqaano waxar cadde weliba aagaarka shaaciye laamiga ka yimaada isgooska soos markaa soo raacdo oo aad timaado meesha loo yaqaano garaashka calimire oo ah meel si fiican loo yaqaano oo waddo ay ka leexato ayaa waxaa u dhaafaysaa dhankaas iyo qorax ka soo baxa ama dhanka bari minis waddadaa hore usii raacaysaa buluketiga calimire ayaa loo yaqaanaa waxaa lagu sameeyaa ama meel buluketi markaad joogtid buluketiga calimire ayaa waxaa u leexanaysaa laba waddo kadib waddada ka saddexaad dhanka waqooyi ama dhanka qiblada marka isgoyska soos ka timaadane waa dhanka gacantaada midig ah waddada aadayso taasoo ah waddo aada u weyn oo soddon ah waana waddada hadda aynu tuseyna muuqaalkeeda xaafadda marka la dhaho waa xaafad aada u camiran oo si fiican loo degan yahay ilaa xilligii dowladdii dhexana la deganaa jiray waxaa caddeynka ugu ah taas guriga ku dhegan oo kale ee duuga ah iyo gadaal xataa gurigaas kale ee idinkaga muuqda waa meel iyada dhan wada filooyin iyo wada guryo ah weliba filooyinka ay aada ugu badan yihiin inaad si fiican u wada aragtaan ayaa rajeynayaa waddada markaa dhankan ka aado dhanka fillada maa dhanka kale waxay ku geynaysaa laamiga oo aan u dheereen laamiga waxaa ka xiga 2 baloog oo keli ah waa kana guryaha filooyinka ah idiin sheegaaye waddadan waa tanaa waddadan weyn ee jaayga ah soddonka ah walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka cabirka dhulkan iibka ah waa 20 lagu dhuftay 15 ama finti barkuundishe dadka qaarkood si u yaqaanaan wejiga hore waxa uu yahay 15 mitir ballacana waxa uu yahay ama dhirirka gadaale waxa uu yahay 20 mitir waa kana booska waa boos meel taag ah ku yaalla walaalayaal haddii aan ka hadlo lacagta lagu rabo ama qiimaha dhulkaani lagu gadaayo waxaa lagu rabaa 28,000 oo doolarka Mareykanka ah oo ah macal dalaal iyo heshiis waxaa ka furan heshiis wixii macquul ah waa laga dhimayaa insha allahu tacaala beec waxaa la yidhaahda meeshuu ka bilowday kuma dhammaado lacagtaasna waa u qalmaa isha idiin macallin ah dhul dhan oo 22,000 keliya la gadaayo magaalada dhexdeeda ah meeshaan saan oo camiran ku yaalla walaalayaal haddii aan ka hadlo ama faahfaahin ka bixiyo jidadka uu leeyahay dhulkan iibka ah walaalayaal dhulkan iibka ah waa hal jidle waxaa hormarta waddadan weyn ee aad arkayseen ee waddada soddonka ah waddadaas ayuu ku jeedaa dhinacyada kale waxaa ka xiga guryo dad ay leeyihiin filooyinkan iyo ay kasoo horjeedaan haddii aan walaalayaal ka hadlo jihada oo u jeedo
booskani waa bari ujeed hal jidla ah. wadada dhanka laamiga waa tana meeshaas idin muuqata waa laamigii. walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka dukumentiga oo ah meesha ugu muhiimsan ee dhulka laga fiiriyo iyo dhammaan hantida maguurtada ahba, dhulkan dukumentigiisa waa nadiif, waa Maxamed Siyaad Barre, waa rasiid iyo safarloog original ah. warqadaha kale ee muhiimka ah oo dhan way u dhan yihiin, wax ka maqan ma lah. nootaaya alle midaad jeceshahay ayaa lagu geenayaa si lagaaga hubiyo sax ahaanshaha dukumentiga. shirkadda Dallis Real Estate haddii aan nahay waxaan mar walba ku dadaalnaa inaan idiin soo gudbino dhulalka dukumentigooda ay saxan yihiin, ay u dhammaystiran yihiin, oo waxna ayna ka maqneen. marka laga faa'iideysto fursaddaas aan mar walba idiin soo gudbino. walaalayaal haddii aan ka hadlo ugu dambeyntii siyaabaha ama waxyaabaha idinka anfici karo dhulkan iibka ah, walaalayaal kow waxaa idinka anfici karaa deegaan, maadaama aad aragtaan meesha uu ku yaallo siday u camiran tahay, meel aada loo degan yahay ay tahay. dhulkaan runtii deegaan uu ku habboon yahay inaad inta dhisatid aad degtid oo ku noolaatid. labo, walaalayaal waxau idinka anfici karaa xagga maalgashiga ama in ay lacag ay kugu kororto ood kadib sii gadato. dadka waxay u yaqaanaan bararsi. fursaddaasna dhulkaani waa ay ka furan tahay, sababtoo ah dhulka wax kordhaya waxaa laga fiiriyaa wadada oo kale, dukumentiga nuuciisa oo kale, jihada ujeeda xataa waa la fiiriyaa. dhulkaani marka waa bari ujeed, jid 30 ah saaran, laami u dhow, meel camiran ku yaala. marka waxyaabahaas dhan la fiiriyo waxay keenaysaa in dhulkaani ay lacag ay ku kordhi karto oo weliba degdeg ay ugu kordhi karto. sidoo kale qiimihiisana uu maanta xaraash camal yahay oo aada u jaban yahay, taasna ay ka dhigayso fursad kale oo maalgashi. midda saddexaad oo habka maalgashiga ka mid ah ama waxyaabaha ka anfici karo, waxa uu dhulkaani sidoo kale ku anfici karaa xagga kirada. inaad inta dhisatid aad sii kireysatid, kiradaasna ay faa'iido kaa soo gasho. soo dhawaada walaalayaal, waxaa diyaar idinla nahay haddii aad erida dhulku leedihiin inaan idin iibino, idin suuq gelino insha Allah, iyo dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir. sidoo kale haddaad dhul u baahatiin ama guri dhisan waa idin suuq geenaynaa insha Allahu tacaala. shirkadda Dallis Real Estate astaanteeda waa hufnaan iyo qancinta macaamiisha. ugu dambeyntii walaalayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha aad ku xiran tihiin shirkadda Dallis Real Estate. waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkan aad furataan idinkoo mahadsan, si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka idiin soo gelinayno insha Allahu tacaala. waa mahadsantihiin mar kale. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.